Melbourne ee wadanka Australia waxaa maanta ku dhintay wadaad Soomaaliyeed oo sida la sheegay uu madi ku dilay nin kale oo Soomaali ah oo Quraan ku aqrinayay. Wadaadka la dilay magaciisa waxaa lagu sheegay Sheekh Maxamed Nuur Faarax. Wariyaha VOA magaalada Melbourne ee wadanka Australia Ibrahim Umar Baafo ayaa haatan qadka si toos ah ugu jira. Ibrahim bal faafahinta warkeena si Sheekh Maxamed Allah u naxariistay Sheekh Maxamed Nuur Faarax loo yaqaan xoogsada waxa la dilay maanta duhuradii xilliga Melbourne waxaana lagu dilay guri Soomaali dhexdiisa ah runtii sheekh wuxuu ahaa nin quraanka saara dadka xanuunsanaya waxaana dilay nin Soomaali ah oo isagu quraan uu saarayay intii quraan saarista ay socotay ayaa la sheegay in ninka uu dhanka jikada aaday isla markaana mindi soo qaatay taasoo sababtay in sheekha uu ku dhufto halkaasina uu ku dhinto waxa laakiin la sheegayaa ninkan dilka geystay in xoogaa maskaxda looga jiray laakiin wali waxa socda baaritaano ciidamada booliska ay wadaan booliska goobta soo gaarayna waxay ku guuleysteen in ninka ay qabtaan oo hadda gacanta booliska ayuu ku jira waxa la socday dad kale oo quraanka la saariyay sheekha ima suurtagelin inaan la hadlo dadkaasi waayo wali waxa socda baaritaanadii booliska mana hadli karaan waxaan rajaynayaa in maalmaha soo aadan marka booliska baaritaankooda ay dhameystaan sababta sheekha ninkan uu dilay inkastoo la leeyahay wiilka xogaa maskaxda ayaa loogu jiray haddana waxaan ka warsugaynaa ciidamada ammaanka baaritaanka ay wadaan dhanka sheekha markaynu soo noqono wuxuu ahaa runtii sida dadku ay xaqiijiyeen in aad u wanaagsan oo bulshada ka caawiya dhanka diinta quraan saar markay timaado xaafad walba loogu yeero uu tago oo dadka quraanka uu saaro laakiin nasiib darro maanta wuxuu gacantiisa ku baxay nin Soomaaliyeed oo isagu xilli uu quraan saarayay uu toreedaasi ku dilay aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Ibrahim Umar Baafo isagoo jooga magaalada Melbourne inoo waramay